في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا، نمضي إلى نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاقنا. في ساحة للعلم كنا نلتقي، والحب والإخلاص زاد قلوبنا. weli nin dherge miya aragteen oo yidhahda anigu adduun waan ka dhergay. kuwa ugu bilyaneersane laleeyahay balaayiin bay haystaan, haddaba wuxuu isagu cuno iyo wuxuu 50 sannadoodoo 50 facoo isaga ka dambeeya wuxuu ay cunaan wuu hayaa. wamaca daalika iyagaa u warwar badanoo habeen iyo maalinba shaqaynaya. aadanaha dunida ku noolay siduu u kala xoolo badan yihi u kala warwar badan yihi. fuqaradu waxay is idhaahdaan aqniyadu way seexatay, may seexan, ma gamaanba. siduu project ugu isaga kaa faqiirsan. waayo qof kasta oo bini aadami mashruucuu wado mashruuciisa ka weyn hantidiisa. bini aadamku waa caynkaa. ka kun haystaa $1,000 haystaa mashruuc 10 kun uu ku jiraa. ka 10 kun haystaa mashruuc 100 kuna buu wadwadaa. ka 1 milyan haystaa mashruuc 100 milyan. idan qof bini aadama wixiisa un wax ku wadaa waa yaryihin. walidalik siday u kala hanti badantahay u kala baahi badantahay aadanaha dunida ku noolay. ambiyadu si ay wax u saxdo waxay wadaagayeen inay aakhiro ka door bidaan adduunka. dadka lumay waxaa lagu lahaa bal tu'hiruuna alxayaaةa اddunya wاlaakhiratu khayru waabqى wamaa cinda allahi khayru waabqى. adduunku wax yar oo daciifa inuu yahay bay dadka u sawirayeen. waxaad joogaysaa inay maalmatay, maalmahana inaad imtixaamantoo lagu imtixaamayo. imtixaankaasi ama xoolaha lagugu imtixaamo ama faqriga lagugu imtixaamayo, ima sabru wa ima shukr. maalmahana inaad imtixaad ku jirto o aanad nasanaynin. adduunka gebigiisuba inuu yahay maxay? walaqad khalaqna اlinsaana fii kabad yaa ayuha اlinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqii. war mid daalaya baa tahay baa la yidhi intaad dunida joogto. idan dadka waxay u jahaynayeen ambiyadu dhammaantood aakhiray dadka u jahaynayeen. kaasina waa astaan kaloo ay wadaageen. astaamaha kale ee ambiyada taariikhda dacwa waducaat ay wadaageen waxaa ka mid ah dikrullah ayaa ahaa zaadka dhibta ah. zaadka sahayda ay dadku haystaan wixii lalahaa sahay ka dhigta wuxuu ahaa ilaahay weynidiisa iyo xuskiisa in carabkaa ku haysid. nebi muuse iyo nebi haaruun baa ilaahay diray. waxaa loo diray ninkii dad u qooq badnaa, u kibir badnaa, ninkii yidhi qabaa'il dhan iyo ummad dhan rag ma dhali karto. reer banu israa'iil wuxuu ku xukumay wixii ay wiil dhaleen ha la dilo, dumarkuna haynoo shaqeeyaane ha la daayo. ninkaa kibir dhaafay ee dad kale anaa rabbiya baa la yidhi u taga. oo maxay ula taga? diinu sheega. kadibna ilaahay wuxuu uhi idhab anta wa akhuuka biaayaati. nebi muuse adiga iyo walaalkaaba taga waa idin diray, rusul baatiin, aayaadkayga ku tago oo ula taga fircoon. fircoon waa nin kibray ee maxay haystaan? waa maxay zaadkooda rasmigii? ilahay wuxuu ku uhi walaa taniya fii dikri. aniga xuskaygun haka daalina. inaad aniga ay xustaan oo igu xidhnaataan khalaas. oo ninkii rabbi haystaa ma adduunka lu u baahan yahi? hadduu rabbi kula jiro yaa kaa soo hor jeeda markaa? makhluuqaadku maxay yihiin? ilaahay nebi muuse iyo nebi haaruun wuxuu ku yidhi walaa taniya fii dikri idhabaa ilaa fircawna inahu طagىa faqulaa lahu qowla layina lacalahu yatadakar aw yakhsha. aniga xuskaygana haka daalina. qabta fircoonkaasi baa ilaahay yidhi xaggiisa taga, weliba waa mid qooqay baa ilaahay yidhi oo kibray. nabiy llaahi moxamed calayhi الsalaaةu wasalaam qur-aankii ugu horeeye ku soo degay qadiyaة اlcilmi buu ka waramayay iyo ilaahay inuu kariim yahay. اqرأ bsmi rabika اladii khalq khلq الإنسان min calq اqرأ wrabuka الأkرم اladي calama bاlqلم
callama الإnsaana ma lam yaclam oo tilmaamaysa umamku iyo bini aadamku horumarkiisa akhriya adduunba wuxuu ku salaysay inay aqoonta tay aayaadkii ku xigay aayaadkaasee nebi moxamed ku soo degaa waa aayaadkii lagu diray yaa ayuha اlmudasiru qum faandir warabbaka fakabir baa lagu yihi kac oo dig ilaahayna weynee ilaahayna weynee kac oo digna aayaadkii ku xigee loo soo diray waxay ahayd traininka ah ilaahay dikrigiisa in laga soo saaro yaa ayuha اlmuzamilu qum اleyla ilaa qaliila nisfahu aw inqus minhu qaliila aw zid calayhi waratil اlqur'aana tartiila إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا warkaystuuduubayow baa ilaahay yidhi markii hore waxaa la yidhi kaysdadayow ka codig markana waxaa la yidhi kaystuuduubayow kac habeenkii intiisa badan nuskii kac ama wax yar ka yaree ama waxoogaa ka badi ilaahay u taagnow baa la leeyahay waayo inaa sanulqi calayka qowla haqiila baa ilahay yidhi war culus baan kuu dhiibayaa warka kan zaadka aad u baahan tahay inaad haysataa waa ilaahay cibaadadiisa iyo dikrigiisa iyo xuskiisa idan waxaa laynoo tilmaamayaa taariikhu dacwa waducaat waxay ku salaysantahy risaala ambiyada loo soo dhibay inay dadka xaqa u sheegaan laakiin iyagana waxaa la yidhi waxaad taa kulaysataan gacanta waxa ku haysaan ilaahay xuskiisa gacanta ku haya carabka ku haya cibaadaysta kaas ku sugnaada